Maraykanka iyo Taliban ayaa kala saxiixday heshiis nabadeed ka gadaal dagaal socday ku dhawaad 20 sano. Haddaba waa tuma gacanta diblomaasiyadeed ee heshiiskan gundhiga u noqotay. Waa kuma Zalmay Khalilzad, waa siyaasi aqoon-yahan Maraykan ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Afghanistan. waana qofkii ugu horreeyay ee Muslim Sunni ah kaas oo jaga sare ka qabta dowladda Maraykanka. Ambassador Zalmay Khalilzad ayaa dhashay 22 Maarch 1951 waxaana ku dhashay magaalada Mazar Sharif. Aabihiis waxa uu ahaa shaqaale dowladeed waxaana ka soo jeeday qoys tabaqada sare ah waxaana qoyskiisu soo degeen magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan. heerarkiisa waxbarashada waxa uu dalkiisa ku dhamaystay waxbarashada dugsiga sare kadib waxa uu ku biiray jaamacadda Maraykanka ee Beirut. intaa kadib waxa uu ku biiray jaamacadda Chicago waxaana ka bartay culuumta siyaasadda sanadii 1979 waana sanadkii uu midowgii Soviyeeti ku duulay dalkiisa Afghanistan. shaqooyinka uu soo qabtay Zalmay Khalilzad waxa uu kaaliye macallin ka noqday jaamacadda Columbia. waxa uu madaxa fulinta ka soo noqday koox la magac baxday saaxiibada Afghanistan taas oo taageeraysay dagaalyahanadii mujaahidiinta kuwaas oo la dagaalamayay midowgii Soviyeeti. waqtigii u dhaxeeyay 1985 ilaa 1989 waxa uu ahaa kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka gaar ahaan arrimaha dagaalkii Iran iyo Ciraaq iyo duulaankii midowgii Soviyeeti ee waddanka Afghanistan. waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaad yar oo madaxweynihii Maraykanka Ronald Reagan ku qanciyay in Maraykanku uu hubeeyo kooxihii la dagaalamayay midowgii Soviyeeti. 1991 ilaa 1992 waxa uu ahaa kaaliye ku-xigeenka xogayaha difaaca Maraykanka gaar ahaan taliskii madaxweyne Bushkii koowaad. xilligii madaxweyne Bill Clinton waxa uu ahaa khabiir xagga siyaasadda ah oo ka howlgala macadka Ron Washington. kadib waxa uu ka mid noqday golaha hay'ad ka faallota arrimaha Afghanistan oo xaruntoodii ahayd magaalada Washington. markii la doortay madaxweyne George W. Bush ku-xigeenkiisii Dick Cheney ayaa ku daray guddiga difaaca qaranka Maraykanka waxaana loo magacaabay kaaliyaha xogayaha difaaca Maraykanka Donald Rumsfeld. waxaa loo magacaabay kaaliyaha madaxweynaha sidoo kale waxaa loo magacaabay madaxa golaha amniga qaranka Maraykanka gaar ahaan arrimaha khaliijka iyo koonfur galbeed Aasiya. Zalmay Khalilzad ayaa soo noqday safiirka Maraykanka u fadhiya Afghanistan kadibna waxaa loo magacaabay safiirka Maraykanka u jooga dalka Ciraaq. dhammaadkii taliskii madaxweyne Bushkii yaraa 17 Abriil 2007 waxa uu ahaa wakiilka Maraykanka u jooga qaramada midoobay xilkaasna waxa uu hayay ilaa 2009. Zalmay Khalilzad marnaba kama fadhiisan howlaha diblomaasiyadda Maraykanka. shalay waxa uu ku guuleystay isaga iyo koox diblomaasiyiin ah oo uu hogaaminayay xalka gaarista khilaafka u dhaxeeya Maraykanka iyo Taliban kaas oo ka taagnaa waddanka Afghanistan.